faa'iidooyinka ay leedahay bidaarta. kow qofka marka uu joogo wadanka Morocco oo uu bidaar leeyahay waxa loo arkaa nin raganimadiisu dhameystiran tahay. labo wadanka Turkmenistan la yiraahdo ninka looma ogolaanayo naag kale inuu guursado hadduusan bidaar lahayn. saddex wadanka Brazil marka la joogana meelaha qaar gabdhaha hadduu ku soo aado nin timo badan kama helaan murugo ayay dareemayaan waxaana ay isleeyihiin cashir wanaagsan kuma bari karo. afar wadanka Uzbekistan qofka marka uu bidaar leeyahay wax mehera lagama rabo. shan wadanka Indonesia meelo ka tirsan garsooraha isku guurinaya labada qof haddii uu arko in ninka uu bidaar leeyahay waxa uu arkayaa naftiisa inuu yahay nin nasiib badan sawir ayuuna la gelayaa. lix wadanka Australia marka la joogana gabadha hadday hesho nin bidaar leh ninkeeda timaha badan ayay ka tagi kartaa. toddobo wadanka Finland marka la joogo oo gabadha jaamacadda Helsinki marka ay gasho rajadeeda ugu weyn maahan inay baasto ee waa inay heshaan nin bidaar leh. sideed Soomaaliya marka la joogana doolarka waxaa loo yaqaanaa Abu Bidaar markaas oo kale waa marka kuwa bidaarta leh ay dhihi jireen allow naga leexi isha kuwa timaha leh. waraahyo ku qoran baasaboorada dawladaha. kow USA dawladda Mareykanka ayaa ku ilaalinaysa meel walba aad joogto. labo Canada ciidankeena oo dhan ayaan u soo dhaqaajin karnaa haddii ay wax gaaraan qof baasaboorkan wata. saddex Faransiiska si fiican u eg waa muwaadin Faransiis ah. afar UK baasaboorkan qofka wata dartiis ay boqortooyada Ingiriisku u dagaalamaysaa ilaa askariga ugu dambeeya uu naga dhinto. shan Qatar baasaboorkan dawladdan ayaa leh markii ay doonto ayay kala wareegi kartaa ama ka baabi'in kartaa. lix Iraq qofkii baasaboorkan iska lumiya waxa lagu ganaaxayaa 500,000 oo diinaar. toddobo Yemen haddii aad baasaboorkan iska lumiso ganaax lacageed ayaa laga qaadi doonaa. sideed Morocco ogow baasaboorkan dawladda ayaa iska leh waad ku safri kartaa oo kaliya. dawladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta isbarbar dhig mid waxa uu rabaa inuu ku faano baasaboorka aad wadato adiga oo kalsooni dareemaya midna waxa ugu qoran goodin ama cagajugleyn iyo ganaax. talow baasaboorkeena Soomaaliya maxaa ku qoran? haweeney ayaa go'aansatay inay ogaato qaabka uu ninkeedu uga falcelin lahaa haddii guriga ay isaga tagto iyadoo aan u sheegin isaga. kadib waxa ay samaysay waxay u qortay warqad waxaana ay ku tiri waan tagay mana rabo inaan kula noolaado intaan in ka badan. kadib warqadii waxa ay dul saartay miiska waana ay ka tagtay. saacado kadib waxaa yimid ninkeedii waxa uu akhriyay warqadii kadib waxa uu bilaabay in uu heeso oo uu ciyaaro isagoo oo leh amba waan ku nacay waana ku dhibsaday. waxa uu iska bedelay dharkii waxa uuna wacay qof kale isagoo oo faraxsanayo ku yiri gacaliso waan ku iimaanaya waan isla cunteynaynaa. tii doqonta ahaydna waa ogaatay inaanan rabin wayna baxday waana uu iska baxay. xaaskiisa oo sariirta hoostiisa ku jirtay wax walbana maqlaysay ayaa soo baxday iyadoo niyad jabsan oo go'aansatayba inay iska baxdo. warqadii ayay furtay waxayna akhrisatay jawaabtii uu qoray laakiin waxa warqada ku qornaa qaali waxaan arkay lugahaaga taleefankana been ayuu ahaa qofna lama aanan hadlin ee naga daa ciyaarta noocaas ah.